السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعال صاحبة قيمها قدرتها إيقاعها إلى مدلو مال البواد جوكتالي مرحلة البواد لودا وليسال وحال هود إذا لهي رمضان مبارك. قرآنك حديثك حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو waxaana muuqaalkan ku eegi doonaa hadduu allaha awoodda leh raalli ka noqdo soonka iyo sidoo kale guusha nolosha. soonku waa wadada guusha adduunka iyo sidoo kale aakhiro. haddaba maxaa xiriiriya soonka iyo sidoo kale guusha nolosha? muuqaalkan ayaan dabcan ku eegi doonaa. guusha xakameynta nafta ayaan wax ka taaban doonaa. guusha markaa dejinta qorshaha iyo sidoo kale samirka iyadoo la kama marla waa la eegi doonaa. guusha caafimaadka iyo sidoo kale maskaxda ayaa ka mida waxyaabaha aan muuqaalkan ku gorfayn doono. mawduucyada sidoo kale aan muuqaalkan ku dul istaagi doono waxaa ka mida guusha markaa bulshada iyo sidoo kale naxariista. qaybaha dambena hadduu allaha awoodda la raalli ka noqdo waxaan ku eegi doonaa calaamadaha guusha. qodobadaas ayaan dabcan hadduu allaha awoodda leh raalli ka noqdo muuqaalkeena ku gorfayn doonaa daqiiqadaha soo socda ee soo dhawaada saaxiibayaal. mar kale kula wacan saaxiibada qiimaha badalow muuqaalkeelana waxa uu daaran yahay soonka iyo sidoo kale guusha noloshu. guusha nolosha ma aha keliya in qofku uu helo maal ama sidoo kale magac, balse waa in markaa uu gaaro dheelitirka u dhexeeya naftiisa, bulshadiisa iyo sidoo kale abuuraha oo ah markaa alla subxaana wa tacaala. soonka ramadaanku waa dugsi markaa qofku uu ku tababaranayo sidii uu noqon lahaa qof markaa guulaystay. aas kasta oo guul markaa lagu gaaro ama lagu gaaro noloshu waxa uu ku dhisan yahay xakameynta nafta. soonku waxa uu ku barayaa in markaa aad ka adkaato damacaaga, gaajada iyo sidoo kale haraadku. xigmaddu qofka markaa awooda inuu iska dhowro cuntada xalaasha ah oo hor taalla isaga oo markaa jooga meel cidlo ah wuxuu yeelanayaa awood markaa uu kaga adkaado caqabad kasta oo noloshu markaa ku horgudban. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. guusha dejinta qorshaha iyo samirku. guushu waxay u baahan tahay samir iyo adkaysi. ramadaankuna wuxuu qofku barayaa nidaamka waqtiga iyo sidoo kale samirka. nidaamka waqtiga, toosidda markaa saxuurtu, ilaalinta afurka iyo sidoo kale gudashada salaaduhu waxay qofku barayaan nidaaminta nolosha. samirku guushu kuma timaado degdeg ay waxay u baahan tahay in markaa loo samro dhibka muddada kooban si markaa loo gaaro natiijada weyn ee afurka iyo sidoo kale ajirka. guusha caafimaadka iyo maskaxda. mahmahdu waxay tiraahdaa maskax caafimaad qabto waxay ku jirtaa jir markaa caafimaad qaba. soonku waxa uu jirku ka nadiifiyaa suntu
wuxuuna maskaxda markaas siiyaa fursad ay ku degto oo ay ku fikirto qofka maskaxdiisu markaa degan tahay. waxaana markaa fikira qof maskaxdiisu ay degan tahay sidoo kalena ay caafimaad qabto. qofka maskaxdiisu degan tahay calooshiisuna aysan cusbeen waxa uu qabtaa go'aano ka hufan kuwa kale. guusha bulshada iyo naxariistu haddii aynu eegno qofka guulaystaa waa kan dadka kale wax tara. soonku wuxuu markaa kugu dhalinayaa naxariis. marka aad dareento gaajada qofka baahan waxaa markaa ku dhalinaya dareen ah markaa in aad wax bixiso ama aad sadaqa la baxdo. qofka guulaystaa waa kan dadka kale wax tara. soonkuna waxa uu markaa ku tusinayaa naxariis. marka aad dareento gaajada qofka baahan uu dareemo oo kale waxaana markaa kugu dhalanaysa dareen ah in markaa aad wax la baxdo ama aad wax sadaqaysato. xigmaddu maxay tahay? guusha dhabta ah waa in markaa gacantaada aad wax ku bixiso si aad gacanta alle wax uga hesho. gulaanad calaamadaha guusha ugu weyn ee qofka uu helo ramadaanku waa taqwada. haddii markaa aad ka dhalatid bishan adiga oo ah qof cabsashada alle ay ku weyn tahay waxaad heshay furaha guusha labada daarood. guushu ma aha in markaa bishii aad dhammaysato ee waa in markaa bishii adiga oo ku dhex dhammaysto wasaqda iyo sidoo kale dunuubta adiguna aad ka soo baxdo adiga oo iftiimaya. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. culimmadu waxay yidhaahdaan soonku waa jimicsiga ugu sarreeya iraadada ama go'aanka qofka. qofka guulaystay ma aha kan dadka ka adkaaday ee waa kan markaa naftiisu ka adkaaday. soonkuna waa hubka markaa aad ku jebinayso silsiladaha damacaaga. haddii markaa aad awoodday inaad iska celiso rabitaanka caloosha oo ah markaa baahida koowaad waxaad leedahay awood markaa aad ku gaarto guul kasta oo u baahan adkaysi. nidaamka iyo sidoo kale wakhtiga haddii aynu eegno guusha noloshu waxaa sal u ah nidaamka. culimmadu waxay xuseen ramadaanku inuu yahay macalinka ugu wanaagsan ee nidaamku. ma jiro guul la'aan nidaam ma jiro mana jiro nidaam la'aan wakhtiga. soonkuna waxa uu qofku barayaa in daqiiqad kasta ay qiimo leedahay. haddii aad daqiiqad ka horayso afurku waa dembi. haddii aad daqiiqad ka dambayso saxuurtuna waa dembi. sidaasina waa barashada guusha. haddii aad bishan kadib noqoto qof markaa go'aan leh wakhtiga ilaaliya dadkuna u naxariista ogow inaad tahay qof guulaystay waayo waxaad haltiday furayaashii barakada ee nolosha.
guud ahaan daawadayaal muuqaalkeelii intaas ayuu inoogu egyahay. muuqaalkeella waxaan kaga hadlaynay soonka iyo sidoo kale guusha nolosha. muuqaalkan waxa uu ka mid ahaa muuqaalo taxane ah oo lagu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan in daawadayaasheenu aan u soo baahino si markaa wax ul ay uga faa'iideystaan. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan mubaarak.